السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxay kala hadlaysaa Suraakha Ismaaciil anigoo aad iyo aad idin salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan. Maanta waxaan idin soo gudbinayaa 10 shay oo kugu caawinaya noloshaada inaad guul ku gaadhid haddaad samaysid dadka sameeyay horena ay ka faa'iideen oo aan rabo maanta inaan idin share gareeyo. 10kan shay ayaa ka ugu horeeya wuxuu yahay in maalintaada aad waqti hore kacdid. maalintaada qofka bini'aadanka maalintii markuu waagu baryo waxa wanaagsan inuu waqti hore kaco aad dadka ka horeysid. haddaad laakiin noqotid qofka dadka ugu dambeeya ee duhurka soo kaca waxay ay kugu aad dareemaysaa inaadan waxyaalo badan maalintaada dhan aad ku jiraysid inaad kala carartid oo aadan waxyaalo badan wixii loogu talagalay inaad maalinta aad qabsatid aadan qabsan karaynin. الله نبينا عليه الصلاة والسلام وحليه هاي ومضيدا إلهي سبحانه وتعالى وحو بركي ساعدها هراء كفضلا كددال إن أضمانين هذا وقت هراء كعديد أذيقو أو كبلابيا عبادة إلهي سبحانه وتعالى صلاة هذا ذكر كاغا قرآن كاغا أو أضمانين تي سفي عن سي مالين تي أون نغطو مالين كام أو مالين إلهي سبحانه وتعالى وحكا سكوف دودي أي نقونا سهدات ساكو بلوديد marka fadlan ka faa'iideyso adduunyadan aynu hadda ku noolahay challenges badan bad maalin kasta face gareynaysaa tacab badan shaqo hard work marka try garee inaad maalintii dhikirkaaga iyo quraankaaga aad ku bilowdid oo aad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala weydiisatid inuu maalintaada ku barakeeyo kuna fududeeyo. qodobka labaad ee aan rabo inaan idin sheego waxa weeyaan consistency waxa weeyaan qofku camalka uu sameeyo ama wuxuu sameeyaa inuu u sameeyo si joogto ah inuu u sameeyo amal hadii yahay cibaada nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri camalka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ugu jecleeyay amaasha kooda maalin kasta joogtada loo sameeyo haba yaraatee marka fadlan wax kasto aad sameynaysid waxa fiican inaad joogto u sameysid haba yaraadee. كشناد أنا ربا إن الذي سوق بيه وحويان قفكو إنه لهذا daily goals goal كسوح نقول كرا مت نفط هذا بنقول كرا أو يعني جو حيالها physical كنفط هذا ربتد أما exercise هالنقطة أما healthy eating هالنقطة وحو also وحو نقول كرا financial goal بنقول كرا أو إن سي أدو هشيد يعني جا لعجو كله وحاد سميني سيد وحو نقول كرا dhinac waxbarashada ayuu noqon karaa oo naftaada aad rabto inaad kor ugu qaadid waxbarashadaada ama tacliintaada ayuu noqon karaa. wuxuu noqon karaa mid relationship-kaaga aad rabto inaad bilgaraysid aruurtaada ninkaaga waalidkaaga asxaabtaada relationship-kaad la sameynaysid aad rabto inaad kor ugu qaadid. haddaba waxyaalahan ama meelahan aan idin soo sheegay waxweeyaan waxyaalaha normally la encourage gareeyo qofku inuu goals ka haysto si ay noloshaadu successful u noqoto insha Allah. haddaba qodobka lixaad aan rabo inaan idin soo gudbiyo waxweeyaan qofku inuu always ku xidhnaado dad nolosha guul ka gaadhay ama dad horumar ka jecel inaad always ku xidhnaatid waayo dadkaas waxa kaaga faa'iidaya dadku hadday yihiin dad already horumar leh inaad aad khibrad ka faa'iidid inaad dadkaas marka aad challengeska ama caqabadka ay kula soo kulmaan inaad la hadashid ay ku sheegaan wadadii ay soo mareen. waxaad iska ilaalisaa inaad dadka negative-ka aad suxbad la samaysid dadkaas waxa laga yaabaa wax kasta aad samayso ama wax kasta aad u sheegto inaanay horta talo ku siin karin wax kasta aad u sheegtana inay negative ka siinayaan oo mar kasta ay nolosha ka tusayaan dhinaca negative-ka. noloshana waxa wanaagsan qofka bini'aadanka inuu noqdo qof positive haddaad positive noqotid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad isku xidhayd oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kalmo weydiisatid Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu ka caawinayaa. marka fadlan dadka iska ilaali. qodobka lixaad aan rabo inaan idin soo gudbiyo waxa weeyaan dadka successful-ka waxay qaadaan salaabay qaadaan waxweeyaan wax kasta waxa jira dad badan oo ideooyin badan haysta ama fikrado badan oo run ahaantii midadal samayn kara haysta laakiin talaabo may qaadin talaabo hadaadan qaadin wixii kama guul gaadhaysid. marka fadlan ideooyinka aad madaxa ku haysataa always waxaad samaysaa ku dhaqaaq
ilaahay subxaana watacaala horta marka horena tala saaro qofku waxa wanaagsan action kasta uu samaynayo 2 ragcadood tuko ilaahay subxaana watacaala ayaa la weydiistaa guidance marka ilaahay subxaana watacaala weydiiso inuu ku caawiyo oo kula garab galo marka talaabo marka qaadid ilaahay subxaana watacaala uu ku garab taagan yahay talaabo waxa laga yaabaa inaad meel dheer gaadid marka fadlan ku dadaal inaad talaabada hore qaadid dad badan baa jira oo raba inay business sameeyaan dadkaas ma qaadayaan talaabooyinkii ideadii madaxa ay iska fadhidaa makaa noqo mid talaabo qaada qodobka ku xigaan raba inaan idiin soo gudbiyo waxa weeyaan qofku inaad wax kasta you keep things simple inaad wax kasta aadan complicated iskaga dhigin oo aadan isku adkaynin haddaad tiraahdo buur ay kaa soo horbaxdaa tiraa buurtaasaan u fuulaya haddaad laakiin talaabo qaadid talaabada ku xigta qaadid waxaa laga yaabaa buurta halka ugu sarreysa inaad gaadhid marka fadlan always waxaa la eegaa maxaan maanta qaban karaa maanta maxaan samayn karaa marka taraagaree inaadan waxba isku adkaynine wax kasta aad simple ka dhigatid biidnillah haddaba qodobkan ku xigaan raba inaan idiin soo gudbiyo toddobaad waxa weeyaan positive self talk the power of positive self talk waxa weeyaan naftaada inaad waxyaalo wanaagsan aad ka sheegtid inaad maskaxdaada aad naftaada kalsooni ku qabtid waxa weeyaan waxyaalo wanaagsan naftaada markaad ka aaminsan tahay waxay kuga caawinaysaa confidence-kaagu inuu ama kalsoonidaadu inay kor u kacdo inaad noqotid aad naftaada motivation siisid qofka bini'aadanka waxa weeyaan wax kasta oo kala soo kulma waa inaad aaminsanaatid naftaada inaad ka bixi kartid aad tira waxa waan samayn karaa waxa waan qaban karaa waayo wax aan suurtagal ahayn caalamkan ma jiro dadkii hore u sameeyeyna waxa weeyaan dad inagoo kala bay ahaayeen marka wax kasta waa la samayn karaa marka aaminsano fadlan naftaada hasha ku noqonay aaminsano inaad wax kasta qaban kartid inaad qurux badan tahay inaad weydka iska ridi kartid inaad exercise samayn kartid inaad wax baran kartid inaad shaqaysan kartid inaad noloshaada meel sare gaari kartid marka fadlan taraagare dadka psychologist oo kale waxay odhanayaan subax kasta markaad kacdid waxyaalo wanaagsan naftaada ka dheh muraayada hortag oo waxaad tidhahaa waan qurux badanahay waan strong baan ahay kanaan ahay clever baan ahay marka si kalsoonida waxyaalahaasi ay naftaada kalsoonidaada kor ugu qaado biidnillah waxaa la ogaaday qofku marka uu waxyaalo negative naftiisa ka yidhaahdo sida anigu waxaa ma baran karayo anigu damiinad baan ahayo anigu waxaa ma ku wanaagsaniyo waxyaalahaas qofku markuu afka ka yidhaahdo waxaa la ogaaday message-yada negative-ka ay inay maskaxda qofka subconscious-kiisa inay tegayaan kabacdina qofkii wixii ay noqonayaan idea satalo halkaa fadhida uu qofku aaminsan yahay taasina ay qofka kalsoonidiisa run ahaantii iyo horumarkiisaba ay dhaawacdo marka fadlan iska ilaali qodobka 9aad ee raba inaan idiin soo gudbiyo waxa weeyaan qofka bini'aadanka inuu naftiisa ilaaliyo hadday noqoto waxaad cunaysid hadday noqoto fitamiinaadka qaadanaysid hadday noqoto inaad physically naftaada exercise garanaysid hadday noqoto inaad holiday aadaysid oo aad meel aad ku nasato tegaysid leanna daily routine-keen waxaad moodaa inuu aad iyo aad run ahaantii u adag yahay marka qofku waxa wanaagsan inuu pause sameeyo oo uu nasto uu dabadna uu time siiyo naftiisa ha noqoto inuu qofku sameeyo meelaha isbaayada meelaha exercise lagu sameeyo baan leeyahay massageska iyo waxyaalahaas marka fadlan ka faa'iideyso oo naftaada of work ku sameeyna ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa weeyaan uu ku weydiinayaa marka fadlan naftaada always ilaali hooyinka Soomaalida waxa laga yaabaa markasta dadka kale ay nolosheena ka horeysayna laakiin naftaadana xuquuq bay kugu leedahay marka fadlan si aad u gaadhid meel wanaagsan waxyaalihii kale aan noloshaada rabtay inaad gaadhidna aad awood ugu heshid taraagare naftaada inaad ilaalisid oo aad naftaada lugafta garaysid sidoo kale hooyinka Soomaalida hadday nahay waxaynu always taraagareynaa qof kastaba inaynu iska horeysino laakiin baro naftaada inaad u nasatid oo naftaada aad takargaraysid si wax kasta oo kale aad rabtay inaad achieve garaysid u heshid qodobkan 9aad ee rabo inaan idiin soo gudbiyo waxa weeyaan waxbarashada qofka bini'aadanka maalin kasto Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku siiyo inaad wax cusub baratid waxa cusub aad baranaysaa khasab ma aha inuu academic noqdo wuxuu noqon karaa idea cusub aad motivational speaker aad dhegeysato aad ka heshid wuxuu noqon karaa sheekh aad dhegeysatay oo wax cusub cilmi aad dhagta ka dhegeysatay aad ka faa'iiday wuxuu noqon karaa buug aad akhriday wuxuu noqon karaa wax cusub aad baratay sida wax loo kariyo kale ayaad barata wuxuu noqon karaa
يعني waxyaalo badan waxbarashadu just book iyo qalin maaha laakiin taraagare maalin kasta oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siiyo inaad wax cusub aad barato aad tiraahdo maanta maxaan bartay aad dib u eegtid maalintaada aad tiraahid maanta maxaan faa'iiday maanta maalinteedii siday ahayd qofka reflection weyn maalintii sameeyo marka fadlan ka faa'iideyso maalin kasta inaad wax cusub baratid insha Allah ta'ala qodobka tobnaad oo aan rabo inaan idila wadaago oo noloshaada horumarkeeda qayb ka qaadan kara oo aan rabana inaan ku soo gabagabeeyo videogan waxa weeyaan qofka bini'aadanka inuu u dabaaldego guulaha yaryar uu gaadhayo haba yaraatee waxa weeyaan taasi waxay kugu motivate garanaysaa ama taasi waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad kuwa ka waaweynna aad hiigsatid oo aad gaadhid leanna maxaa yeelay Soomaalida waxay tidaahaa wadada yari wadada weyn bay kugu ridaysaa marka guul yar haddaad gaadhid waxaad ogaataa guul weynna inaad gaadhi kartid taas ayay macnaheedu tahay marka fadlan always waxaad taragaraysaa mar kasta oo aad gaadhid goal inaad celebrate garaysid inaad naftaada happy garaysid inaad naftaada dinner u kaxaysid oo kaliga waad la samayn kartaa inaad cadar qaaliya soo iibsatid oo kale inaad hadiyad tira waxaan iibsanaya hadan waxa aan gaadho oo aad motivation say kugu noqoto ka bacdina aad naftaada aad waxyaalihii samaysid marka run ahaantii always waxa wanaagsan qofku inuu waxyaalahaas way kugu encourage karaynayaan inaad gaadhid haddaba cajalada waxaan rabaa intaas inaan kusoo gabagabeeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barayaa inaan waxyaalahan aan idin sheegay aniga iyo idinkaba inagu anfaco biidnillah aad iyo aad baa u mahadsantihiin jazaakumullahu khayran aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh